بسم الله. إشمعل ورسمة ديجيتال ميديا وإذن سلام دمانتي maanta waxaynu ka hadli doonaa lama filaanada ka dhacay doorashadii dhammaatay ee Soomaaliya. waxyaalaha lama filaanka ah ee meesha ka dhacay waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo, madaxweynihii hore oo Soomaaliya oo la filayay inuu isku dhajiyo madaxtooyada xataa haddii guusha laga helo, ayaa ogolaaday in uu xukunka ka dago oo dhiibo. wararka la sheegayo waxaa ka mid ah in Farmaajo hadduu diidi lahaa habeenkaas doorashadu ka dhacday 15 bishii May uusan nabad meeshaba kaga baxeen teendhada Afisyoon. waxaa kaloo aan la filayn in madaxweyne Soomaaliya oo gobolku ka yimi ay maanta ka taagan tahay xasarad ay adag tahay in la daweeyo, oo uu dhex dhigay constituency-giisii ama meesha uu ka soo jeedo fidmo qabaa'ilka uu ku abtirsado ka tirsan. waxaan kaloo la filayn in doorashadii Soomaaliya ay boobaan madaxdii dowlad goboleedyadu. waxaase ka sii daran inaan ninka xildhibaanka oo lasoo boobay daacadnimadiisa la ysku hadlayn karo, ee nin walba uu ku ballan furay xildhibaanku ama dhabarka ka toogtay. ragga aad ballanfuryadu ugu dhacday waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. waxaase kaloo la yaab lahayd in madaxweyne Puntland oo u tartamay inuu madaxweyne qaran noqdo ama dowladda federaalka inuu hugureeyo isagoo ilaa ahmiyadda ay leedahay Puntland iyo dowrka taariikheed ay kasoo qaatay geedi socodka nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya, inuu hungureeyo ra'iisul wasaare dabadeedna uu ka dhigo cadow ama ku cunay ama ku ciiday. waxyaalaha lama filaanka ah ee doorashada ka dhacay waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo yiri xanta waxaa la yidhi xanta fulaygu xantiisa ma oga, oo yiri waxaa laygu xantaa inaan bas buuxo wato ee ma watee tareen baan wataa. oo run ahaantii markaa ka turjumayay xasan inuu wato bas buuxa, hore u buuxa, oo ayba iska dhahay in boos looga helo cid kale oo dibadda ka joogta baskiis. waxyaalaha dhacay oo meeshaas lama filaanka waxa weeye in doorasho Soomaaliyeed qabsoomi kadho isagoo madaxweynihii diidan yahay markaa joogay. dowlad goboleedyada madaxdooduna is hayaan inay doorasho dhacdo oo weliba si nabadgelyaa ku dhacdo. waxyaalaha waxay noqotee lama filaanka ah ee mararka qaarkood ka yaabinaya beesha caalamka iyo Soomaalidu maraan la filayn inay heshiin karto. waxyaalo badan oo kala dhacay, laakiin waxyaalaha ugu waaweyn taa wey. hadda iyo dan sidee hore loogu soconaya? horey waxaa loogu socon karaa madaxweynaha
cusub ama cusboonaysiiyey madaxtooyada wuxuu daliil u yahay in Somali doctrine ama halhayskii Soomaalida madaxweyne ma soo laabto inay beenoobi kadho oo markaa nin kasta oo hore u soo qabta xukunka uu ku soo laaban karo waxaa kaloo loo baahan yahay xasan inuu caddeeyo inuu tareen aan buuxin wato madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni waxaa loo baahan yahay inuu ka dhabeeyo qoraaxdiisii ahayd hal qof iyo hal cod baan Puntland u horseedaya arrintaasu waxay gelaysaa taariikhda haddii lagu dhaqaaqo lagana dhabeeyo muhiim bay u tahay Puntland kaliya maahane Soomaaliya oo dhan waxaan hubaa haddii hal cod iyo hal qof uu ka dhaco Puntland inuu inta kalena ka dhacayo Soomaalida weynna uu ka dhici doono hal cod iyo hal qof intaan la gaarin ama aysan dhammaan 4 sano oo Xasan Sheekh Maxamuud loo idmay intaas ayaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo